Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble shalay wuxuu ka shaqeynayay hay-adda sirdoonka qaranka ee Soomaaliya in sumcaddii ay ku lahayd dowladnimada Soomaaliya iyo shacabka ay ku lahayd in uu dilo waliba uu ku bedelo qaab ah in dadkii shacabka ay ka cararaan waliba adduun weynaha uu tusiyo meeshan in dadka lagu dilo balse maantay wuxuu si toos ah dadka ugu hor cadeeyay in xilkii ama dilkii loo geystay Ikraan Tahliil in maanta ay baaristeeda qayb ka tahay hay-adda sirdoonka qaranka ee Soomaaliya balse shalay wuxuu ka shaqeynayay ayaa ah in sumcadda hay-adda uu dilo maanta bal waxaa cadaatay in dadka uu u tusiyo inay tahay halka dowladnimada ay ku taagan tahay hay-adda sirdoonka qaranka ee Soomaaliya waxaa la yaab leh shalay inuu ka shaqeynayay in hay-adda uu magaceeda dilo balse maantay oo dadka u sharxayo inay tahay meesha kaliya ee dowladnimada Soomaaliya ku taagan tahay dadka waxaan rabaa inaan u sheego hadal kasta oo qof walba oo ku hadlo waa hadal siyaasi ah rabo in uu magaca ku dilo qofka markaas xilka ka hayo shaqada qabanayo meel kasta oo lagu duulana waa qaab noocaas ayaa lagu sharxi doonaa balse ani waxaan rabaa inaan kuu sheego oo kooban hay-adani waqtiyada ay soo martay xilliyadii ee magacyada kala duwan loo soo bixiyay sidoo kale waxaan rabaa inaan kuu sheego hay-adani hawsha ugu weyn ee qabato ee dalka u qabato maxay tahay intaan guda galin waxaan rabaa inaan kuu sheego barnaamijkeena iyadoo kooban 2011 hay-addan sirdoonka qaranka wixii ka horeeyay waxaa lagu magacaabi jiray waliba waxaa magacani loo soo bixiyay 70-meeyadii waxaa loo soo gaabi waxay ahayd NSS ayaa lagu soo magacaabay xilligaasi waa xilliga uu ka talinaya siyaad bara dalka balse wixii ka dambeeyay 2011 ilaa 2013 hay-addan magaceedu wuxuu ahaay oo loo soo gaabiyay BS dadka inta ugu badan hay-adda magacaasina way ku yaqaaneen oo qaab ah waxay u shaqeyn jirtay dharcad balse uma aysan shaqeyn jirin qaab international ah oo dalka xuduudaheeda iyo dekada waliba xataa ma aysan ka shaqeyn jirin qaab noocaas laakiin dalka xilligaasi waxa ku badnaay magacaasi ayaa aad loogu isticmaali jiray dadka waliba waxay ka shaqeyn jireen dhalinyarta oo xilligaasi aad ugu badnaay in ay ka shaqeeyaan dagaalada ay markaasi soo fulin jirtay hoolaha ugu badan ay halkaas ka qaban jirtay balse wixii ka dambeeyay 2013 hay-addan magaceeda saxda ah loo bixiyay wuxuu ahaay NISA halkaas ayaa waxa ka bilaabantay hay-addani inay u shaqeyso qaab international ah balse wixii xilligaasi ka bilaawday waxay ahayd hay-ad xafiiskeeda ay ka shaqeeyaan wadamo shisheeye sida hay-adaha ugu sareeya wadamada dariskana la ah iyo sidoo kale Europe wadamada qaarkood ay ka dhex shaqeynayeen hay-adda NISA qaabkaasi uma aysan shaqeynin waliba qaab international ah wixii ka dambeeyay xilligaasi ilaa iyo xilliga uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dalka joogay markii laga soo gudbay oo dalka imaaday madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hay-addani waxaa ku imaaday isbedelo kala duwan waxaa markaasi xilliga madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xilkaasi hayay Sampoloshi laakiinse waxaa xilligaas waliba xataa lagu suubi jiray hay-addani in la soo bandhigi jiray dadka u shaqeeya hay-adda balse wax yar oo kooban ayaan ku celinayaa dib xilliga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud hay-addani waxay u dabaaldegi jirtay qaab ah sanad guuro waa wax aad loola yaabo hadda marka aad fiiriso marka Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble hadlayo ma lagu qabanayo dadka sabcinayo waliba dadka hoolka xilligaasi fadhiyo ma lagu qabanayo sababtoo ah hay-addani waa hay-ad sirdoon laga ilaalinayo wadamo shisheeye laga ilaalinayo dadka jabhadaha dalka ku jiro in ay ogaadaan sababtoo ah waxa u shaqeeya hay-addani dad waxbarto dad jaamiciyiin ah iyo dad kala duwan macnaha qaab kala duwan nooc doonan ha noqdaan ayaa hay-addani u shaqeeyo marka hay-addani ma la doonaa marka dadka inta ugu badan inay arkaan wadaadis waay fiidiyowga loogu soo koobayo Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble dadka inta ugu badan ma ogaa karaan hadalkaasi oo Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen halkaas ka jeedinayo dadka u sabcinayo hadalka u jeedinayana aan lagu qaban karin laakiinse xilligii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaa jirtay in hay-addani ay u dabaaldegi jirtay sanad guuradeeda waa wax aad iyo aad loola yaabo balse wixii ka dambeeyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud xilligii uu ka soo gudbay oo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo dalka xukunkeeda qabtay waxaa nagu maqaalo ah in laga bedelo hay-addan qaabkii uu shaqeyn jirtay laakiinse hay-addan isbedelkeeda saxda ah wuxuu imaaday markii loo dhiibay
taliyaha nabad sugidda taliyihii hore ee nabad sugidda Fahad Yaasin Xaaji Daahir. xilligaasi waxaa bilaamatay hay-adani isbedelo kala duwan in lagu suubiyo, weliba xataa hay-adani dadkii u shaqeey jiray baabuurtii ay ku shaqeey jireen weliba la kala diro. laakiin hadda hay-adani waxay u shaqeysaa laba qaab oo internationally ah. qaabka ugu hoose ugu weyn wuxuu yahay qaab dharcad ah. waa rag dharcad laakiin la aqoonin qaabka iyo waxa ay yihiin. haddii aad baaris ku suubisana ma ogaa karta raggaasi. labo, waxay u shaqeeyaan qaab ah ciidan ayay u shaqeeyaan. tusaale, ragga dharka cad marka ay soo gudbiyaan xogta saxda ah waxaa howlgalkani fuliyo ragga ciidanka ah. ragga ciidanka ah weliba xitaa lama arki karo. waa qaabka ay u shaqeeyaan hay-adaha sirdoonka caalamiga ah ee adduunka. aan kasoo gudubno qaybtaasi aan usoo gudubno. hay-adani waxay haysaa xogaha wadamada dariskana la ah. waa markii ugu horeysay hay-ad sirdoon Soomaaliya ee leedahay ay xog ka hayso wadamada dariskana la ah. waa meesha kaliya ee lagu kala aragti duwan yahay. maanta aanan la doonaynin in hay-adani ay gacanta ku dhigto xilka dad u shaqeeyo wadamada dariskana la ah. sababta xogta ugu weyn ayaa laga hayaa wadamada dariskana la ah. weliba waxyaabaha ugu badan ee dalka maanta ka dhaco wadamada ku lugta leh ayay hay-adani haysaa. marka aan kuu soo koobay, NISA waa meesha kaliya ee dowladnimada Soomaaliya ka shaqeyso kana jirto. hay-adani haddaysan jirin macnaha dowladnimada Soomaaliya ma jirto waay. sababta ah dowladnimada Soomaaliya waxay ku socon kartaa oo kaliya waa hay-adan xogta ay soo gudbiso in loo gudbiyo dowladda kadibna la fuliyo laga hortago waxa saameynta ku ah dowladnimada Soomaaliya. labo, amaanta uu ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo maantay amaanay hay-adda NISA shalay iyo maantay laba ayay kala yihiin. shalay wuxuu sumcadda ka dilayay hay-adda sirdoonka qaranka Soomaaliya, balse maantay wuxuu amaanayaa hay-adda sirdoonka qaranka Soomaaliya. laakiinse ogow waa inaad ogaataa sida saxda ah hay-adani waa meesha kaliya ee dowladnimada Soomaaliya ku taaganta. si kasta oo looga meereysado waa halka meel ee dowladnimada Soomaaliya ka shaqeyso. saddex, waxaan rabaa inaan kuu sheego NISA waxay u taagan tahay difaaca dalkeeda iyo shacabkeeda. shacabkeeda marka aan ku leeyahay, hay-adani waxay fulisaa ama ay ka shaqeysaa in ay fashiliso waxa duulaanka ku ah shacabka, in ay sheegto dhibaatooyinka ku ah shacabka, in ay soo sheegto ama ka hortagto dhibaatada ku ah shacabka. sidoo kaleeto dalalka duulaanka ku ah Soomaaliya ayay soona sheegaysaa. sidoo kaleeto waxay soo sheegaysaa hubka iyo dhibaatooyinka dalka lagu hayo halka laga soo geliyo ayay dalka u sheegaysaa kana hortagaysaa. shalay iyo maanta kala fog hay-adda sirdoonka qaranka ee Soomaaliya waa halka ay dowladnimada ee Soomaaliya ay ku taagan tahay. waa inaad ogaataa lana socotaa dowladnimada Soomaaliya inay ku taagan tahay hay-adda sirdoonka qaranka ee Soomaaliya. shalay haddii ay u dabaaldegi jirtay la soo bandhigi jiray dadka u shaqeeyo, maanta lama soo bandhigee waxay u shaqeysaa qaab international ah. fadlan videogan hadduu kusoo gaaro la garay si uu gaaro walaalo badan ee u daawadaan xaqiiqda saxda ee ka jirta maanta dalka Soomaaliya. waad ku maasan tahay daawashadaada haddaa xilligaana la soo gaartay. fadlan videogan sii share garay, page-kan haddaad ku cusub tahayna la garay oo gambalka furo si uu kuu soo gaaran xogaha markaasi cusub. weliba waxaan kuu soo gudbi doonaa newska markaasi degdeg ah ee xilliga dalka waxa dalka ka dhex socdo. waad ku maasan tahay daawashadaada.